waxaan u soo barakacay abaar darteed iyo laba kooxood oo ishayay markaas oo dagaal ka dhaxeeyay xoolo dhaqataa laha xoolaha la cuni jiray waa la maali jiray waa la qalan jiray awrta la raran jiray geela la maali jiray wixii abaar baa la taqtay beer baan falanayay xoolo ayaan lahaa al-ultim waxaa dhacday markii oo dambeed oo beerta ayadoo ii beeran oo inay iga oonto balkii iga dhadhaco iga basaloobo waa in yaroo ka mida duruufaha xanuunka badan ee ummadda Soomaaliyeed ay ku noolay 27kii sano ee ugu dambeeyay iyagoo intooda badan ku dambeeyay barakac qaxoonti iyo saboolnimo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba Soomaali maanta meel kasta oo joogto adduunka ku yaacday waana qaxooti kii aan qaxooti ahayn oo dalka ka bixinna waddanka gudihiisa barakac ku yahay kan daad kuwa daadsan caruurta iyo hooyooyinka daadsan Afrika Kenya ka bilow ilaa Uganda Ethiopia Yemen Arab oo aan sharci haysanin oo ku dhashay maxay ahayd qaxootiga ku dhashay iyo kuwa ku barakacay waddanka gudihiisaba waxay u baahan yihiin maxay ahayd inay helaan nolol wanaagsan waxa afka qalaad lagu yiraahdo livelihood inay helaan ay magangalyo fiican helaan ay waddankooda ku soo noqdaan ay nolol hagaagsan helaan u baahan yihiin Maryan Cali waa hooyo leh 12 caruur ah isla markaasna leh uur 7 bilooda Maryan waxay ku dhaawacantay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka waxa iyada iyo qoyskeedu ay ku nool yihiin xerada barakacayaasha ee beerta daraawiishta ee magaalada Muqdisho qoysku waxa uu ku tiirsan yahay aabaha oo ka shaqeeya nadaafadda suuliyada waxa uu guriga yimaadaa 3 habeenba mar 13 qof ee qoysku ka kooban yahay waxay wadaagaan hal qol oo ka samaysan jiingad sida waalidiinta faraha badan ee qoysaska Soomaaliyeed walwalka ugu weyn ee haysta hooyo Maryan waxa uu yahay waxbarasho la'aan taasoo ka dhigaysa mustaqbalka jiilalka soo koraya mid mugdi ku jira bariiskii xal ay kuleyseen saaka waxaan dib ku shidan oo karsano ma bahaysan halka haweena karsana subaxii waa kuleysan adan habeenkii oo jeesana wax intaas oo beer la kariyaa ma la bariiska waa kan male suugo male hilib male sidaas ay karsana waxa aad u fara badan qoysaska barakacayaasha iyo qaxoontiyada Soomaaliyeed ee aan iyagu heli karin bariis shan milyan 6 bilyan baa dadka Soomaaliyeed dad baahi qaba ah 70% ama 50-60 in ka badan dadkaas waa dadkan ama barakacayaasha ah ama dadka soo noqonaya hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranku waxa ay hoos timaadaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya inkastoo sharciyadeedii la sameeyay ama baarlamaanku ansixiyay 2016 February oo markaas hay-ad legal status la ay noqotay hal warqad bay ahayd maantana hada compound-ka aragteen bay ku shaqeysaa 67 gobolada xafiisyo kule bay leedahay nidaamyada ay ku shaqeyn lahayd bay leedahay waxyaalaha ugu cajiibsan oo aan gaarsiinay bay waxay ka mid tahay inaan suurto gelinay system hay-adaha dadka waxa ay siiyaan ay ku xaqiijin karaan in ayaga gaartay oo fartiisii sawirkiisa biometric ah inaan sameeyno bulshada Soomaaliyeed ee 12 milyan lagu qiyaaso 3 milyan in ka badan hadda agaday ka sugayso dalkuna sidoo u burburay iyo hay-adan sida u yartahay la fiirinayo waxaan rajaynayaa waxa nala ka filayo inay yartahay muddadii u dhaxaysay 28 ilaa 30 bishii Agost 2017
hay-addu waxay kulan ballaaran isugu keentay dad tiradoodu gaaraysa 150 ka kala socday dhammaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya. dadkan oo iskugu jiray wakiilo ka socday maamul goboleedyada, aqoon-yahano, dhalinyaro, haween, xubno ka mid ah barakacayaasha iyo dadka qaxoontiga ku ah dalalka shisheeye iyo xubno ka socday beesha caalamka. shirweynaha waxaa si qoto dheer leh loogu lafaguray arrimaha la xiriira qaxoontiga, dadka ku soo laabta dalka iyo barakacayaasha iyo weliba sidii xal waala loogu heli lahaa. shirweynaha waxaa lagu soo bandhigay talooyin wax ku ool ah oo iskugu jiray qorshayaal dhow iyo kuwa mustaqbalka ah. munaasabadan waxaa ka hadlay mas'uuliyiin ka socotay beesha caalamka, waxaana si rasmi ah shirweynaha u furay madax sare oo ka socotay dowladda federaalka Soomaaliyeed. To find durable solutions is to reverse that process of loss and impoverishment. To find durable solution is to regain safety and security, livelihoods, adequate housing, access to services, and so on. I am very grateful for this opportunity to be here to speak at this open ceremony of this very important event. I am also glad to see that by arranging this event, Somalia is already honoring one of the commitments made at the IGAD summit on the Somali refugees in March this year. The fact that we are here today to open this national forum shows that things are moving forward. I assure you that the EU is ready to support you in this. I wish you a very successful event. This is an important milestone, and we cannot take this for granted because it's the first time we are seeing in the last 30 years Somali government-led, Somali government process, Somali government discussion on a matter as important as the Somali displacement. So I say congratulations for this particular effort and for this particular forum. waxaa la sheegay in ay tiro ku dhow 3 milyan oo qof oo Soomaali ama ay dalka gudihiisa ku barakacsan yihiin ama dalalka deriska ah maanta ay ku nool yihiin. waa rubuc tirada dadka Soomaalida ah qiyaastii. taasi waa arrin aad iyo aad muhiim u ah in hoosta looga xariiqo in rubuc tirada dadka Soomaalida ah maanta ay qaxooti yihiin. waxaa kaloo jirta qaxan Soomaalidu uu socday ugu yaraan 37 sano ugu dambeysay ugu darada 22 sano ugu dambeysay laakiin muddo dheer buu socday. haddeer aynu hadlaynana waa la qaxay saacadkan aynu hadlayno dadku waa qaxaya. arrintan waxaa loo baahan yahay oo kale inaan laga eegin waa mas'uuliyad dhammaanteen inoo taala waayo international community wayna caawinaysaa laakiin waa hawl u taala dowladda Soomaalida ma aha marka waa in laga arkaa cid walba in mashruuc laga arko ma aha in dan gaar laga arko ma aha waa in kulli cid waliba ay dhinaceeda qabato oo xalka la isu geeyo weey. marka waxaan rajaynaynaa 3 bari ka bacdi in mawduucan ay ka soo baxdo shaho rasmi ah oo lagu kalsoon yahay oo dawladdu ay qaadatay mas'uuliyadeedii oo commitment-keeda ay qaadatay talooyin ay ka soo jeedisay inaga ina daawanayaan 3 milyan oo maanta la sheegay inaga ina daawanayaan inaga dib inoo eegayaan maxaa Soomaaliya dawladda Soomaalidu ay tiribay leeyihiin maxay idin soo wadaabay leeyihiin tara leeyna ka sugayaan marka nin la sugayo maxaa sugaysaa weey. laba shay baa hadaba muhiim u ah su'aal baa muhiim ah inaynu isweydiino maxaa sababa barakaca maxaa sababa dadku inay dalkooda ka qaxaan ma doorasha mise waa duruuf ku timid dadka. waxaynu ogsoonahay in barakaca iyo qaxoontigaba ay keenaan laba shay waa ta koowaad colaad baahsan oo dadkaas qabsata iyo waa ta labaad abaaro soo noqnoqda oo dalka ku dhufta. aabayaasheenii Soomaaliyeed waxay mar walba ka ducaysan jireen col iyo abaar. dadka Soomaaliyeed ee nool ama noolaa ilaa 1990kii iyo wixii ka dambeeyay waxa ay soo raacay wixii ay ka ducaysan jireen aabayaasheenii Soomaaliyeed. Soomaha marka waxaynu u baahannahay si loo helo xal iyo xuluul midho dhal ah in marka hore aynu ka wada shaqeyno nabad nabad nabad. waxaa xaqiiqa wax badan oo badan yaa qabtay in ka sii badan baa naga dhigay. wasiirka kelmadda noo dhihi doone sida alle idinkugu ogyahay oo aan riix lahayn because shalayna geysa meeshaas maantaan isku nimid oo ka dhownahay meesha hore waxaan ku wada shaqeyno in kasta oo ay qolo kala leedahay habka loo wada shaqeyn karo
oo aysan ahayn kaalay soo noqon dadku kuma soo noqonayaan sababtoo dadku wixii ay ka qaxeen dadku waa jiraan inta ay jiraan oo laga shaqeyn lama soo laabanayaan laakiin waxaan u baahanahay inaan dadka u naxno arrinta isdul taagno mas'uuliyadda inay sugaysa aan eegno dhirino wadiqooyinka loo mari lahaa marka bal sidii looga gudbi lahaa hadafka ugu weyn ee shirweynuhu wuxuu ahaa in dhidibada loo dejiyo siyaasad qaran oo xal waara loogu helayo arrimaha la xiriira qaxoontiga barakacayaasha iyo dadka Soomaaliyeed ee ku soo laabanaya dalka. National Policy Framework oo saddexdaba khuseeya ama qaxooti soo noqonaya ha noqoto ama IDP gudaha ku jooga ha noqoto ama in yar oo qaxooti ha noqotee waa markii ugu horeysay ee la yiri war dadkan Soomaali nala mido oo dastuuriyan xaq u leh inaan lagu nacin waxooda yihiin war dadkan dawladda Soomaaliyeed ha ka dhigata ajandaheeda koobaad sida ay wax ugu qaban lahayd ee ha laga gudbo arrintan degdega iyo emergency humanitarian ka ah ha laga dhigo wax national development plan-keeda ku jira waxa laga hadlayo waa dad life kooda laga hadlayo su'aasha marka aan rabo inaan maanta weydiiyo wasiirka jooga waxa weeye shir inta la isugu imaado since 1992 lagu kala taga ma dhacayo dad baa dhimanaya dad baa barakacayaasha dixiri ku galay meesha ay ku jiraan ishuugu maamul goboleed ma aha ishuugu gobolka banaadir ma aha ishuugu waa federal level wad balaan dadkan loo haya kuwa soo barakacay iyo kuwa soo noqonaya yaan badi xooga saaray ayaa la xooga la saaray laakiin kuwa wali degan qaxooti ku ah dalalkii dibadda dalka dibadiisa xuquuqdii uu muwaadinka Soomaaliga ee halkan degan u lahaa miyaan loo dooni karin maxaase loo baleen gareeyay xag waxbarasho ha noqoto kaararka Soomaaliya inay helaan nationality ha noqoto wadanimadoodii iyo wixii kale ay xaq u lahaayeen dadkan barakacay gudaha ugu badan dadka ugu badan ee barakacayaasha ama wadamada dariska hadda ka soo noqonaya ee qaxootiga ku ahaa waxay u badan yihiin in badan oo kamid ah qabaylada aan hubaysnayn ee ay barakiciyaan qabaylada hubaysan ee geela dhaqata dadkaasi haddii fursad la siiyo inay dib ugu noqdaan wabiyadoodii iyo dhulkii beeraha ku habboonaa waa dad active ah shaqo yaqaan ah wax soo saar badan iyo dhaqaale badan dalka soo gelin lahaa dalkan gaar la bariyo iyo bini aadmi la bariyo uga bixi maayaan qaxootiga ilaahay hal qodob baa looga baxay qodobkaa looga baxaya waxa weeye dalkan xalka in loo helo nabadiisa waana meeshaan ka bilowdeen dowladda federaalka haddaan nabad la helin qaxootiga laga bixi maayo soomaaliyana tegi mayso maalin baddacan baa gubanaya sida ogsantihiin nabadgelyada waa shay qaali ah nabadgelyo la'aan iyo abaar oo taxana ah sideebaan uga hortagnaa marka ugu horeyso waxaa muhiim ah in nabadgelyada laga shaqeeyo abaaraha taxanaha ah oo isdaba joogane weyga looga baxsan karo waxa waaye dadkii oo wax barto xirfadoodii waa muhiim dhinaca ha ahaato agriculture iyo dhinacii oo ah vocational and technical skill training. I think this conference or this forum is a very good start for Somalia to begin to coordinate on these issues and to create a very clear structure on how to coordinate, who should be involved, and also to engage in dialogue with those people who are actually affected. So both in terms of the IDPs, refugees, returnees, but also the relevant authorities. So these people need to get together and discuss with each other in order for there to be any durable solution. abwaankii suldaan timcade 69kii wuxuu la hadlayay dawladda markaa jirtay gabay uu tiriyay tix yar baan rabaa inaan ka sheego waxay ahayd macna ma laha aadnigu waxay ku martamiyaan macluul wax kaagama taraan maan lagu guray midigtaadu waxay xoogsataa meedha gaajada malka adan lahayn looma lulumaanka weliga magaabada hashaada ka roon maydhanaan kale waxa kaloo jirtay gabaygii ahaa oday kale oo isna Soomaaliyeed wuxuu yiri
macna ma laha waxay ahayd kelmadda kale waxay ahayd wixii aadan lahayn wiilkayow laguma weynaado waxaad waayo maashaba nin laa weel u talanaya labadaa kelmadood waxay muhiim u tahay waa xigmad dhab ah dadka qaxootiga ka soo noqonaya ama dhulka imanayana waxaa laga rabaa inay iyagu dadka wax taraan oo ay qaataan mas-uuliyad dhab ah innagana waxaa laynaka rabaa inaynu isku fillaano aad baad u mahadsantihiin horjoogaha haddaanan la xalinin dowladdan ay xalinin ma laga dhexbax karo dhibaatada markaa dadka hayso guddoomiyaha meeshan markaas maxaa xal walba waa raadinayaa dadka dhulka le in isla xaalo si dadkaas dhibaato u gaarin mar walba waa wax dhaca kara marka maxay ka muuqataa gobollada inay maanta maaragtay culeyska la saaro dadka ADB-ga inay dhul helaan gobollada inay ayaga culeyska saaran gobollada laga rabaa mashaakilka Soomaalida barakicinaya ama barakiciyay kuma koobna maanta colaadda oo kaliya waxaa ku soo biiray mid kale oo dhibtiisa iyo culeyskiisa wata waana arinta abaarta iyo xaalufka deegaanka ka jira oo saameyn aad u weyn oo lafdhabar ku haya nolosheena qaybtii lafdhabarka ahayd oo noloshii miyiga ahayd sharciga la sameeynaayo waa in oo IDPs-ka loo sameeyo ama durable solution framework wax la dhahaa jiro in la sameeyo oo adduunyada caam ay ka tahay in lagu saleeyo annaka waxaana reer guuraa iyo waxaana beeraley in lagu saleeyo reer guuraaga iyo beeraley dadkii beerahooda loo celiyo oo loo celiyo maxay ahayd dhul la siiyo xoolihii la siiyo oo laakiin aanan ahayn mid maxay ahayd oo emergency ama degdega mid la fiiriyo long term loo fiiriyo waqti dheer xal waara loo helo. Basically what I like very much is the insistence that a humanitarian approach is not enough, but one has to take much more into consideration the developmental aspects. shirweynaha waxaa soo gunaanaday ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkiinan halkan isugu yimid kuwiinan u damqaday inaad isugu timaadaan in dad walaalihiina oo dhibaataysan aad u gargaartaan waxaan rabaa inaad ka fikirtaan inaan dalkan lagu xallin karin keliya in mar walba qaxooti loo gargaaro waxaan isla garanaa inay muhiim tahay inaan ku gargaarno dadka Soomaaliyeed waa inaan gacan u fidinaa qaxootiga laakiin waxaa muhiima sida keliya oo qaxootinimada looga bixi karo inay tahay inaan dalkeena dib u dhiso maanta waxaan isugu nimid keliya ma ahan inaan xallino sidee baan loogu gargaaraa qaxooti Soomaaliyeed waxa ay tahay sidee baan uga shaqeynaa in 10 ama 12 milyan oo Soomaaliya halkan hadda joogta aanay kulligood qaxooti u noqon waxaanay la tashi guud bay ahayd la tashi farsamo oo gobollada lagu aadaya ayaa daraasadeedii mar hore la bilaabay yaa aadi kara sidii qorshihii national development-ga loogu tagay dhammaan gobollada mid la mid ah oo gobolladii loogu tagay ka bacdina Muqdisho la isku imaanaya ka bacdina wasaaradda la aadaya waxaan u gudbin doonaa golaha wasiirada ayaga go'aan ku yahay in dikrad ku soo saaraan in ay sharci ka dhigaan oo baarlamaanka gudbiyaan go'aanka ay qaadanayaan waxaan idin leeyahay kan qurbaha joogo kan magaalada jooga Muqdisho dowladda federaalka dowlad goboleedyada waxa loo baahan yahay isku duubni sharci inaan sameysano oo meel ka soo wada jeesano ilaahayna aan u noqono iscafino midda ugu horeysa waa nabadgelyada haddii nabadgelyo la helo dadku barakac ma ahaan haya nin walba beertuu ka yimid buu aadaya nin walbana baadiyuu ka yimid buu dhaqanaya oo xoolaheeda yaqaan haddii nabad la helo nolol baa la helaya waa taas horta midda koowaad midda labaad nabad haddii la helo waxaa iyadana la rabaa noloshii lagu noolaan lahaa dowladda Soomaaliya waa inay xoogga saarto dadkan sidii ay dib u dejin rasmi ah oo qaran ay ugu samayn lahayd
xidigti